wiil Soomaaliya ayaa 3 qof ku dilay gudaha dalka Jarmalka sidoo ku waramayo ayaa la mudakar dhibaatooyin ayaa soo wajahday waalidiin badan oo ku nool dalkan Jarmalka kadib markii ay goobjoog ka noqdeen aaswadareedyo loo sameeyay dhalinyaradii ay ku rajo weynaayeen in ay ku nastaan kadib markii ay nolol adag la soo mareen in ay keenaan wadanada ugu fursada fiican dunida si ay dhalinyaradaasi uga badbaadaan mustaqbal la'aanta haysata dhalinyaro badan oo ku nool dalkii hooyo xilligan qiyaastii 50,000 oo Soomaaliya ayaa ku nool dalkan Jarmalka waxaana la dareemayaa dhibaatooyin si joogto ah ay la kulmaan bulshada Soomaaliyeed Jarmalka kadib markii iskaashiga iyo isku duubnidii uu meesha ka baxay magaalada Fusburg ee koonfurta gobolka Bayer ee dalkan Jarmalka ayaa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya xalay fiidkii uu ku dilay 3 qof halka 6 kalena uu dhaawac ka soo gaadhay isagoona uu adeegsaday toori waxaana dalkan Jarmalka ku soo badanayay dilalka ay isku geysanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo isku adeegsanaya toori halka qaar kalena ay isku dhigaan tareenada doomiyaha jaaliyada Soomaalida ee magaalada Stuttgart ee dalkan Jarmalka Cali Khaliif oo warbaahinta la ayaa ka waramay dhibaatooyinka dhalinyarada siiba da'yarta si wadanka oo la qabsan lahaayeen wadankan fursado aad u fara badan bay ka jira oo ay dhalinyaradu ay ka heli kartaa oo haddii ay jidka toosan ay ku toosaan sida ay waxbarasho ay u heli lahaayeen ciddii rabta inay shaqaysato sida ay u shaqaysan lahayd arrimahaas oo dhan baa iyaduna aan isku daynaa inaan wax ka qabanno waxaan kaleeto isku daynaa inaan wax ka qabanno inaan dhalinyarada waqtigooda ay free time-kooda si ay uga faa'iideysan lahaayeen wax ayaga anfaca ay u heli lahaayeen isla markaana ay uga mashquul lahaayeen wax jidka ka duwa yaan isku daynaa dhinaca isboortiga oo kale inaan ayaguna waxoogaa inta tabartaanada aan ku caawino kulamo isboorti oo sanadihii aan soo dhaafnay aan qabanay waa jirsan marka maxkamadaha iyo hay-adaha dawladda ee kala duwan iyo booliska iyo waxyaalahaas oo dhan waanu wada shaqaynaa mar walba waan la kulmaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee rafaadsan shaydaanku oo lumiyay waan la kulannaa runtii dhibaatooyin weyn way ka jiraan waxaan arrintii hore taan kaga hadlay waxay ahayd ka hortaggeeda iyo sidii xal looga heli lahaa arrimahaas kale si aynan u dhaceen laakiin markii ay dhacaan waxa weeye dawladdii iyo hay-adaheedii ayaa gacanta ku qabta waxaan isku daynaa inaanu ka caawinno sidii ay dadkaas maxay ahayd ay dhaqan celis wanaagsan ay u heli lahaayeen oo xataa hadday xabsi galaan xabsiga ay uga heli lahaayeen kaalmo hay-adaha arrimaha socialka ka shaqeeya in dhaqan celin loo celiyo arrintaas oo maxay ahayd ay xabsiga dhexdiisa ay ku helaan waxbarasho anoo jaaniska ka faa'iideysanaya dhalinyarada da'yarta ee waddanka soo gashay dhalinyaro keliya ma dad waaweyn ba hataa ku jira waxaan ugu baaqayaa in ay ka faa'iideystaan waxa wanaagsan ee waddanka yaalla ee waxbarashada ugu horeyso cidii shaqaysanaysa xoogsiga way ka helhayaan inay iska ilaaliyaan waxyaalahan maanka dooriya oo noocyo aad u fara badan leh khamriga waxa ugu fudud ama ugu sahlan ee khamriga ka tahay waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada inay arrimahaas aad iskaga ilaaliyaan waxaan ugu baaqayaa inay urursanaadaan oo iska warhayaan inta badan dhalinyarada waxyaalaha leexda waxay u badan yihiin dhalinyarada bulshada ka baxsan aan bulshadooda ku dhex jirin ayay u badan yihiin marka haddii ay bulshadooda ku dhex jiri lahaayeen oo imaan lahaayeen masaajidada iyo meelaha ay bulshada ku aruursan tahay mayna galeen arrintaas waxaan isleeyahay masaajidka marka aynu joogno wadamadan qurbaha ah wuxuu ka dhigan yahay maxay ahayd meeshii badbaadadii buu ka dhigan yahay meeshii ruuxu ku badbaadi lahaa marka hadduu ruuxu dabada la soo galo masaajidka uu badbaadayaa adduunkiisii intaan aakhiraba la gaarin buu badbaadayaa laakiin dadka masaajidada ka fogaada maxay ahayd bulshadooda ka dhexbaxa dadkaas ayaa u badan dadka gala aad bay lil'asaf ugu badan yihiin eriyada Stuttgart dadka cabtooyga ee loo bixiyay maxay ahayd maandooriyaasha isticmaala ama tuulooyinka magaalooyinka yaryar ee magaalada ka baxsan marka la barbar dhigo saa ay tahay way jiraan waxaan isku dayaynaa iljaariyadahan dhalinyaradaas intii gashayna si looga soo saari lahaa inta aan gelinna looga mashquulin lahaa ama maxay ahayd waxbarashadooda danahooda adduun ay u raaci lahaayeen ama xataa marka ay free time-kooda ama free site-kooda ay u qaadan lahaayeen waxyaalo anfaca jirkooda iyo maskaxdoodaba anfacsay u heli lahaayeen وهي المدكر MMTV جرمال